bannaanbax ballaaran oo ay isku soo baxeen kumanaan kun oo shacab oo laga soo horjeeda go'aankii ay qaadatay dowladda federaalk ee Soomaaliya inay ku joojiso diyaaradihii toos u tagi jiray magaalada Kismaayo iyadoo bannaanbaxa uu soo qabanqaabiyey maamulka Jubbaland ayaa maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo dibadbaxayaasha oo sitay borar ay ku qornayeen hal ku dhigo kala duwan iyagoo ay socod ku soo mareen wadooyinka halbowlaha u ah magaalada Kismaayo ayaa isku yimid garoonka kubadda cagta Wamo isla markaasina ay ka dalbadeen dowladda federaalk Soomaaliya inay ka qaado xayiraadii ay ku soo rideen diyaaradaha toos u tagi jiray magaalada Kismaayo. waxaan cambaaraynaa dowladda Soomaaliya madaxweynaha Farmaajo waxaan u sheegayaa waxaan nahay dadkii taageeray waxaan nahay dadkii u shubay inuu maanta nagu joogsado inuu yiraahdo diyaaradaha ilaa Muqdisho ay soo maraan Kismaayo ma garan waa nagu gardarraba waxaan anaga waxaan nahay dowlad isku duwan dadweyne isjecel anaga dooranay madaxweynaheena anaga raalli ka inta dad ayaa isku soo baxay waana danaha guud danta Soomaaliya inaa fiiriso ayaa ku wanaagsan jaalla madaxweyne sidan ma aha dowladnimo ma aha sidan ma aha shaqo ma aha sidan ma aha mas'uuliyad ma aha sidan ma aha xukun ma aha sidan madaxweyne sidan xukun ma aha haddaad madaxweyne tahay ee run aad sheegaysid shacabka wuxuu u soo banaan baxay diyaaradda dhowr la joojiyo maxaa dhowlay ka takoora magaalooyinka kale maxaa dhowlay la dhahay dhowlay saqa sabax xamar imow Kismaayo ku noqo maxaa dhowlay ku saayida ma qabiil ba u artaa dhowlay degan yihiin arrintaa waa qalad ma yeelayna ma doonayna waxaan idin sheegaynaa shacabku waa shacabkiinii dadku waa dadkiinii kama maaranno madaxweynaha iyagii baa tahay ra'iisul wasaaraha iyagii baa tihiin waxa weeye dawladdu waa dawladdayadii waxaan idinka codsanaynaa oo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad idinka codsa shacabkiina inay u turtaan taasi waa iga waano waa iga waxa weeye madaxweyne jacayl way iga tahay Jubbaland baa soo hadhay Jubbaland waa isku tashanaysaa waana isku filan tahay maanta waxa khalqi maanta u soo baxay meesha oo bannaanbaxa ah waxa weeye shucuurtayada aan ku bijinayo qorraxda aan u taaganahay waxa weeye hadalka ka soo yeeray Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka noqon leenahay maanta waxaan qorraxdan u taaganahay oo soo bannaanbaxnay in aan qodobadii arrintii dawladda ay soo jeedisay ayaa ma aragtay aad noo dhibtay diyaaradaha Soomaalida waa ku adeegataa wax badan oo ma aragtay Jubbaland dadka shacabka u baahan dawladda waxaan u baahannahay shacabkan ida mas'uulka ah dawladda waa aqoonsanahay waxaan rabnaa shacabkeeda inay u turto dawladda aysan ku tumanin oo aysan cadaadin dad barakacayaal jiro daawo loogu keeno wax walba oo ma aragtay dhibaato waxaan rabnaa in naloo furo arrintaas dawladda ay ka noqoto oo raali gelin ka bixiso arrintaas waxaan ka codsanaa Farmaajo fargelinta uu nagu haayo dalka fargelinta ku inuu naga dhaafo nabadgelyo haysanaa kala dambeena haysanaa ninkii dirmiis ku saaran yahay fargelinta iyo cambaaranta uu nagu wada ninka naga joojiyo wadanka muxuu ahaa cabidana naga joojiyo Axmed Madow anaga rabna shicibka taagan meel baa laga taageeray Axmed Madow anaga rabna ana qorataanka ha joojiyo qaskay faadaha dhaafo wadanka uu joogo nabad kama dhalinin nabad laga dowladda Soomaaliya ayaa amar ku bixisay in ay diyaaradaha magaalada Kismaayo imaanaya ay markii hore soo maraan Muqdisho taasi oo ah mid culays lagu saarayo maamulka Jubbaland ee uu hogaaminayo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe Cabdi Abshir Yuusuf TV-ga codka Bariga Afrika magaalada Kismaayo.